horta waan salaamay rartibto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midixto waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadhan u dhaho qaaladan Renton arrinkay ka hadlayso ila dhigeyso adee inta Nairobi imaatid waxaan koolay halkaan DNA ana lacagta dhiiba DNA ga laga qaaday taraagin ana kaaga qaaday waxa loo diraa South Africa loo diraa DNA ga oo Kenya lagu qaado hadee se lagu waayo simcada okay waxay dhahdeen haddii lacag la DNA ga aan lacagtiisa xitaa dhiibo Nairobi ay maanta sharcigaasna lagu kala baxo hadduu wiilkaas DNA ga yeelan waayo ya maxaa ku wajiya ilmaha ka reebana xabsina ku ureysan vent laakiin hadduu lacag qaaladan uu ku soo baxo waxaan aanu la shirtaga waxa ogaa vent saaxib ismana ceebeenahay vent waxa ogahayna haddii bari soo baxaan DNA sharcigaas ku kala baxan wajiga ku yeel admay shay kartaa maalin aragtay one day aragtay sidee jirkeeda ugu ogolaato waa midda koowaad midda labaad nin damban uma sii arkin midda labaad nin tacsi u taalo sidee uu maxaan ku raaday u sameyn karaa teeda kale waa sax Soomaalina maxamed ku garaadan fahanteen saxiix khaladna way saaran fahant dad negative iyo dad positive na isugu jiraan fahant taasna dadka dhanaa ka wada isma qof walba fikir gooniya ku jira asxaabe fahanteen marka saa u jeedin hadda horteeda dhigay waraagi wiilkiisa fahanteen maahir markaas xaalas su'aal ka dhan ninkaas la isoo ogyahay jawaabta sugaayana inuu isugu markaas soo hadlo waayo wax kale ma sugaayay su'aasha koowaad meesha taala waxay tahay nin oo tacsi u tiri oo aabiis u dhintay horta koow ni idila tahay inuu sinaysanayo talabaad Nairobi waxa joogto inta soo gabdhood oo midba kala qurux badan tahay hadduu inuu sinaysto rabo hore u soo sinaysalay wixii horta asaga ilaahiisa aniga bilaadan waa raaga midhahay malaa'ig waay raaga midhahay waxa ku raaday waa nin malaa'ig oo dambi magalay midhahay laakiin adika su'aasha idin weydiinay waxay tahay midda koowaad gabadhan nin ay maalin aragtay one day aragtay sidee jirkeeda ugu ogolaato waa midda koowaad midda labaad nin tacsi u taalo sidee uu maxaan ku raaday u sameyn karaa wax xun midda labaad ee saddexaad hotelka waxay ahay hotel wadaad looma ogolaan goorme ay fadhigu ku ureeyo meesha macnaha isla fadhiisteen banaanka waa maya muqdisho markay imaatay xamdibilan u tagtay xamdibilan warkii ay soo gudbisay aniga su'aalaha ayada aa weydiiyay waxay ahayd koow ninka hadduu qabo dadkii marqaatiga ahay keenso ilaa way qabaay tirmaho hayaa iri xamdi naagta dhaar ii mari ii soo dhaari xamdi ciyaar kadib way ugu soo cusub waxay ugu tiri gabadha waxay tiri qalada aniga dhacay aniga wax waay ninkii isma guursanaysaa waa hotelkana isla seexan camal ninkii hotelka managerka ah raaga markaa waxa ku dhigaysa bro xalka laga sheegay maxay taa ku rid dhanoo waxa ay tacsiib ku jiro wuuba yaabo cuud bilaa gabadha Instagram-kii meel walba igala soo hadli jirto weeba idibto dhaani bas waxaan ku yiri xamdiye naagtan waxaad weydiisaa meelo kala soo xiriiri jiray screenshot dadka ka soo qaado xataa hadduu blog saaray ilaa qoraalka xageeda kama u tirtiri karee qoraaladii Instagram-ka ay isku wadeeysadeen screenshot ka qaado ha ku tusto ama haba ku tusto baadi telefoon ma haysti telefonkii waa iga dhumay miyaa waxba sheegtay ciwaankii ma dhumay adaan ku weydiiyay ciwaankii ma dhumay waa su'aasha koowaad